Hay soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada season kale oo aad u xiiso badan. Saaxiibayaal ayaantan xoogaa waa is yara weynay, waa iska xanuunsanahay. Saaxiibada ii soo duceysayna aad ayaa ugu mahadcelinaya. Korseyntan aanu gudagelin muuqaalkeena waxaa rabaa saaxiibada in hal su'aal ku soo tuuro. Gabaray ka waran walaashaada haddii ay shukaansato ama xiriir ay la samayso ninkii adeeg ku qabay. Xiriir iyo shukaansi oo kaliya aysan ku ekaanin, weliba ay la samayso gogollaafyo aad u fara badan. Welibana ay tahay walaashii adeeg ka yareed ee gacantaada ku soo korisay. Seasonka maanta idin la wadaagi rabana qiso dhab ah ayaa laga sameeyay. Sidoo kale qaybihiisa oo dhan ayaa muuqaalkan ku wada fiirin doona calaashan ku soo koobi doona. Waxay ahaato muuqaalkan isku day 24 hour in ku gaarsiisan 2500 oo like. Sidoo kalena ku soo bir janaalka haddii aadan weli ku soo birin waxa saaran wadadii aad ku gaari lahayn 100,000 oo saaxiibo. Haddii aad rabtana season in lagu soo quleysay waa igula soo wadaagi kartaa dhankaas iyo Instagram-ka. Intaas haddii aad samaysay aad ayaa u mahadsantahay. Haddana aan gudagalna muuqaalkeena. Bilowga muuqaalka waxaana la barayaa atriishada filimkeena taasoo Nisa lagu magacaabay. Xilligaasi jaamacadeeda ay joogtay aydan waxay rabtay baabuurkeeda inay baakin ay gashato. Laakiin meesha waxaa ka soo baxay atoora filimkeena kaasoo Aris lagu magacaabay. Asagana wuxuu rabay baakinka ay rabtay Nisa inay gaarigeeda ay gashato inuu gashto. Laakiin Aris ayaa iska dulqaadanay wuxuuna ku dhahayaa malaha aniga ayaa soo dahay adigana waa inaad gashataa gaarigaaga halkaani. Laakiin waxaan ogaanaynaa Aris isaga jaamacadaas inuusan dhiganin hasaatee macallin uu ka yahay. Bahantii Nisa ayada markay aragtay aad ay u naxaysaa waa in cabsanaysaa. Maxaa yeelay waxay ogeed ayada haddii ay si xun in ugu qalisay markii uu baakinka uu ka geli rabay. Waxay noqotaa xiisad markay u soo dhamaato Nisa ayada waxay raali gelinaysaa macallinkeeda Aris. Asagana waxaan ogaanaynaa wixii haddii dhacay inuusan waxba uu ka soo qaadin. Intaas wixii ka dambeeyay meesha ay isku baranayaan labadooda. Sidoo kale meesha waxay tagneed Nisa saaxiibteeda taasoo Maadan lagu magacaabay. Laakiin waxaan ogaanaynaa Aris isaga inuusan ka helin Maadan. Maxaa yeelay ayada ma aysan ahayn gabar xijaaban. Maalinka xiga Nisa ayada markay jaamacadda u soo dhamaato alaab aad u fara badan ayay waday. Alaabta ayaana ka daadanayso laakiin Aris ayaa caawinayo. Markii ay soo aadaana meesha uu yaalay baabuurkeeda banaanka roob ayaa ka da'ayay. Asaga waxa uu doonayaa dilad ee labadooda ee roobka iskaga difaacaan. Laakiin Nisa waxa uu dhacay ayada asaga inaysan sugin roobka oo socda ayna soo aadaysa dhankaas iyo meesha uu yaalay gaarigeeda. Waxay noqotaaba Aris ayaa ka daba imaanaya asagoo dilad wato. Gaarigeeda ayuu saaraya oo uu macsalaameynaya. Maalinka xiga Nisa ayaa arkayna aydan xilligaas macmacaan ay diyaarinaysay. Maalinkaas waxaan ogaanaynaa Nisa gurigeeda inuu imaan rabo Aris. Laakiin asiga ma soo dahay ugu dambeyntii waa uu imaanaya. Laakiin Aris asiga maalinkaas inuu gurigiisa u tago uma aysan wanaagsaneyn. Maxaa yeelay macmacaankii asiga lagu soo dhaweynaa oo markaas le foornada laga soo bixiyay ayuu gacanta ku qabanaya. Taasoo saweys asiga miskiinka inuu gacanta uu ka gubto. Waxay noqotaa Nisa ugu dambeyntii Aris waxay baraysaa hooyadeeda iyo walaasheeda. Walaasheedana Rina ayaa lagu magacaabay aydan waxay ka yareed Nisa. Sidoo kale mar kale waxaa dhacaysa Aris asiga Nisa inuu baro hooyadiisa. Hadeertana waxay u muuqataa labadooda si dhab ah inay isku fahmeen weliba ay isku soo dhawaanayaan. Ugu dambeyntii waxaa dhacaysa Aris asiga Nisa hooyadeeda inuu ka soo doonto. Wuxuuna ku dhahayaa anigu waa jeclaa waxaan rabaa inuu guursado. Anagana waxaan ogaanaynaa Nisa aabaheeda ayada muddo sanadooyin ka hor inuu geeriyooday. Waxay noqotaa ugu dambeyntii Aris asiga gabadha waa la soo siinaya. Midaasna waqti fara badan kama soo wareeganayso oo ugu dambeyntii guurkooda ayaa dhacayo. Hadeertana labadooda waxay noqdeen nin iyo naagtiisa. Midaasna muddo sanadooyin ayaa ka soo wareeganayso. Waxaan ogaanaynaa Aris asiga gabar in loo dhalay. Weliba gabadhaas oo lagu magacaabo Tina. Waxay ahaataa Nisa hooyadeeda ayaa soo wacaysa waxay ku dhahaysaa waa ogtahay walaashaada inay jaamacadda ay bilaabi rabto. Laakiin dhibaatada jirta ayaa waxay tahay ay ku dhahaysaa halka degana iyo jaamacadda ay u kala fog yihiin. Sidaas awgeed waxaa rabaa adiga inaa kuu soo wareejiyay walaashaada weliba gurigaaga ay kula noolaato. Nisana hooyadeeda ay ku dhahaysaa arrinkaas ninkeyga ayaa ka dhammaanaya. Habeenkii ninkeeda Aris markii uu imaado ayna weerar ku soo qaadaysaa. Waxay ku dhahaysaa waa ogtahay Rina hadeerta inay jaamacadda u bilaabanayso. Laakiin ayada ma awood ay ku dhahaysaa subaxdiina halkaas ay ka soo baxdo weliba jaamacadda ay imaado haddana dib ay u laabato. Sidaas awgeed aniga waxaa rabaa ay ku dhahaysaa Rina ayada guriga inay u soo wareejiyo. Arrinkaas ninkeeda Aris kama diiday wuxuu ku dhahayaa walaasheeda anigu waa walaasheeda oo kale. Sidoo kalena ayada waa gabadheeda habaryarteed marka halkan way ku noolaan kartaa. Arrinkaas Nisa aad ay ugu farxaysaa waxay ku dhahaysaa midaas waa ka filayay. Maalinka xigan Rina hooyadeeda ayaa soo macsalaameynaysa waxayna ku dhahaysaa adiga waxa loo baahan yahay walaashaada inaadan dhibin. Sidoo kale Nisa hooyadeeda ayaa ku dhahaysa walaashaada waa ka yartaa waxaana loo baahan yahay inaad ka taxadirto. idinkana inaad is walaashataan ayaa loo baahan yahay ku dhahaysaa weli gacmaha iska haysataan iskuna duubnaataan. Intaas wixii ka dambeeyna ayaga halkaas waa ay ka soo tagayaan oo gurigooda ay soo aadayaan. Ugu dambeyntiina nabad ay ku imaanayaan gurigooda. Rina ayada guriga markay imaado aad ay ugu helaysa maxaa yeelay aad ay u qurux badnaay. Qolkeeda ayaa la tusaya waxaana lagu dhahayaa kan adiga kaliga ayaa seexanaysid. Sidoo kalena musqusheeda meesha ayuu ugu dhex yaalay. Habeenkii Nisa ayada mar kale ay ninkeeda u mahadcelinaysaa maadaama uu dalabkeeda u fuliyay. Weliba hadeertan walaasheeda Rina ay kula nooshay gurigeeda xaaladeedan ay ka warhayso. Maalinka xiga Rina ayada jaamacadeeda ay isku soo diyaarinaysaa. Walaasheedan waxay ku dhahaysaa adiga dumeeshigaaga ayaa raacaysa. Rina weliba ayada midaas aysan ku faraxsanayn haddana waa ay aqbalaysaa. maxaa yeelay jaamacadda ee Rina ay dhigato waxaa macallin ka ahay Aris. Intaas wixii ka dambeeyna Aris iyo Rina waa ay isa soo raacayaan. Sidoo kale Nisa ayada gabadheeda ay soo kaxeynaysaa. Iskuulkeeda markay ay geysanayda shaqadeeda ay soo aadaysaa. Anagana waxaan ogaanaynaa Nisa ayada inay ka shaqayso meelaha lagu sameeyo macmacaanka. Weliba ay xirfad u leedahay sida loo sameeyo keega iyo waxyaabaha la midka ah. Habeenkina si wadajir ay u wada cunteynayaan. Rina habeenkaas waxay arkaysaa Aris oo dhaqayo alaabta lagu cunteeyay. Walaasheeda Nisa ay ku dhahaysaa maxay tahay ninkaada oo alaabta dhaqayo. Nisana waxay ugu jawaabeysaa asiga marar qaar waxaa dhacaysa inuu caawiyo. Rina habeenkaas waxay isku soo jiraysaa dhab ahaantii midaan kaliya aabaheyga ayaa sameey jiray isaga ayaana ku arki
jiray laakiin isma lahayn ayay ku dhehaysaa Farax kale ayaa midaan sameynaya waxay noqotaa habeenkaasi saqdi dhexe mar Rina ayadu dibadda u soo baxday waxa ka hor imaanayo Aris xilligaas Rina ayadu xijaab ma aysan wadanin kaliya waxay wadatay dharka lagu seexdo maalinka xigan Rina ayadu jaamacad waxa u soo kaxeynayso walaasheeda Nisa waxay ku dhehaysaa xalay toole wixii dhacay anigu waa ka warhaya middasan dhib ma lahan ayay ku dhehaysaa laakiin waxa rajaynaya inaysan dib dambe aysan u soo laabanin adigana ay iska hubisa markay banaanka u soo baxayso maalinkaasi Aris ardayda ayuu weydiinaya su'aalo kooban laakiin su'aalaha waxa ka jawaabayso Rina markii baraga la soo fasaxana ayaga waxay imaanayaan meel maqaaxi halkaas ay ku bashaalayaan laakiin silan filan halkaas waxa ku imaanayaan wiilal jaamacadda la dhiganayeen kuwaas oo rabay inay foodeeyaan arrinkaas Rina ayaa ka soo horjeesanaysa idan hogaamiyaha ugu sareeya ayay bilaabaysaa inay muuqaal ay ka duubto waxayna ku dhehaysaa maxaa awooda oo samayn kartaa meeshan waxaa joogeen dad aad u fara badan ayagana waxay bilaabayaan muuqaal inay ka wada duwaan dhammaantooda Faraxasna wax lagu sameeyay isaga aad ayuu ugu xumaanaya meeshan isaga wax naqsan ayuu iskaga tagaya habeenkaasina waxaa dhacaysa Nisa iyo familkeeda ay banaanka casho u soo doontaan sidoo kale Aris Rina ayuu ku dhahayaa maanta wixii jaamacadda kugu qabsaday haddii amarka la kulanto anigu ay ila soo wadaagi kartaa intaas kadib Nisa ayaa soo boodaysa idan walaasheeda ayay ku dhehaysaa nin haddii aad dooranayso Aris oo kale waa inaad doorataa warbal Soomaaliya beenta ila fiiriyo Mohas camal ma iska dhaada isaga ayaa Faraxyeesha wax badan dheer laakiin waxaa laga yaabaa ayada carabkeeda inuu isgafay ma ahe Mohas ee dhihi rabtay malka xigan Rina ayadoo qubaysanayso shaawarka oo dhan ayaa ka halaabayo calaashan wax biyo ma soo daanaya ayaa ka wada xilligaasina madax shaamba ayaa u marsanaa ayadana ay soo bixaysa oo qolka walaasheeda ay soo galaysa xilligaasina guriga cidna ma aysan joogin waxay rabtay inta uu dhiman inay halkaas ku soo dhameysato laakiin guriga Aris ayaa imaanaya isagana gabadhiisa ayuu waday weliba oo hurdiis xilligaas ayuuna iskuulka keenay waxay noqotaa silan filan suuliga waxa aga soo baxayso Rina ayadana waa ay naxaysa Aris markay aragto waa ayna la yaabaneed midaan sida ay ku dhacday sidoo kale guriga ugu dambeeyay Nisa ayaa imaanayso intaas wixii ka dambeeyay Rina ayada walaasheeda Nisa ay la wadaagaysa shaawarkeeda inuu ka halaabay laakiin Nisa walaasheeda waxay u sheegaysaa in loo sameyn doono habeenkaas oo dhan Rina iyo Aris ayaga waa ay fikirayeen waxayna ka fikirayeen maanta wixii dhacay habeenka xiga Rina ayadu joogto library-ga waxa dhacayso in nalalka lagu damiyo isla markii Faraxii dhibka wadnaa ee shalay toole iyo asxaabtiisa ayaa weerar ku soo qaadayaan ayagana waxay rabeen inay kufsadaan laakiin silan filan meesha Aris ayaa ku imaanayo asiga ayaa bilaabaya inuu ka celiyo intaas kadib Rina ayada banaanka ay u soo baxaysaa ayadoo ordayso laakiin Aris ayaa ka daba imaanayo waxayna aamin la sanad waxay ku sameyn rabeen ayaga intaas wixii ka dambeeyay Aris iyo gudaha gaariga soo gelinayo habeenkaasi waxa dhacayso Rina iyo Aris ayaga inay isku soo dhawaadaan weliba bishimahooda uu isgaaro waxay noqotaa ugu dambeeyay gurigooda ay dib ugu soo laabanayaan Nisa ayadu waxay la yaabaysaa waxa ku dhacay walaasheeda laakiin ugu dambeeyay Aris ayaa la wadaagayo intaas wixii ka dambeeyay ninkeeda dhaawac soo gaaray ay bilaabaysaa inay ka dhaydo habeenkaas dhab ahaantii Nisa ayada cabsi aad u far badan ayaa soo wajahday maxaa ilaa ninkeeda iyo walaasheeda halis ay ku sugnaayeen laakiin anaga waxaan ogaanaynaa Rina iyo Aris ayaga waxa soo dhan inaysan ka welwelsaneen inta ay gaariga ay soo sanaayeen oo dhan waxay ka fikirayeen bishimahooda uu isgaaray maalinka xigana Aris maamulka ayuu ku dacweynaya dhalinyartii dhibaatadan geysatay asagana midaas waa laga raaligelinaya waxaana loo sheegaya inaysan dib dambe aysan u soo laaban doonin guriga markii uu ku soo laabtan waxa uu bilaabaya shaawarka dumaashidiisa inuu sameeyo laakiin guriga waxa dib ugu soo laabanayso sidoo kale Rina Aris ay la wadaagaysaa maanta Nisa inay soo daahi doonto howlo shaqo ay meel kale u aaday ayuu ku dhahaysaa aydan waa ay imaan doontaa laakiin waxa dhacayso Aris asii koolooyinkii uu ku dhijiyay shaawarka inay ka soo baxsadaan biyo fara badan ayaan ku soo fakanayo Rina ayaana bilaabaysa ayada inay caawiso labadoodana maalinkaas waxa dhacaysa inay halkaas ku wada qoyaan laakiin ugu dambeeyay Aris ayaa joojinayo biyahaasi halkaasina dareen u dhaxeeya labadooda ayaa ka dhalanayo ayagana way isxakamin weynayaan waxaana dhacaysa waxyaabo aan munaasib ahayn weliba aan wanaagsaneyn inay halkaas ku dhex maraan habeenkaas oo dhan Rina ayada Aris inay aragto aad ay aga xishoonaysay maxaa yeelay weli maskaxdeedu waxa ku guuxay maanta wixii dhex maray labadooda maalinka xigan labadooda oo jaamacad ciyo ayay ka soo baxayaan Rina Aris ayaa soo kaxinay wuxuuna keenayaa meel ay degnaayeen meel aad aga fog meeshaasina hotel ayaa ku yaalay isagana wuxuu ku dhahayaa labadeen majeclaaleed inaan waqti ka qaadano ayada xoogaa midaas way ka fikiraysaa laakiin ugu dambeeyay way aqbalaysaa calashan way ogolaanaysaa ayaa ka wada labadooda inay waqti wada qaataan habeenka ayayna dib ugu soo laabanayaan qol ayayna halkaas ka qabsanayaan Aris Rina ayuu ku dhahayaa aniga markii aan galo 3 minutes kadib adigu waa inaad soo gashaa waxay noqotaa ugu dambeeyay waxay iskugu imaanayaan qolkii ay ku balansanayeen halkaas ayayna waqti aad u qurux badan ay ku qaadanayaan laakiin dhab ahaantii ayagu waxay sameynayaan qalad ayuu ahay markay waqtigooda ay soo qaataan ayayna guriga dib ugu soo laabanayaan Rina hadirtan waxay bilowday ayada walaasheeda Nisa inay ka masiirto markay aragtona Nisa iyo Aris oo isla fadhiyaan weli waqti aad u qurux badan qaadanayaan sheekaysanayaan ayadu way xanaaqi jirtay intaas wixii ka dambeeyay qolkeeda ay geli jirtay taasina waxay inoo cadeynaysaa ayada walaasheeda inay ka masiirayso maalinka xiga dhamaanaysa familkeeda waa ay macsalaameynaysaa maxaa yeelay kontrakta cusub ay heshay ayada magaalo kale ay tagaysaa halkaas ayna kaga fara badan ku soo sameynaysa dib ayna u soo laabanaysaa waxay noqdaa ugu dambeeyay waa ay soo baxaysaa Arisna gabadhiisa ayuu soo seexinaya banaankan Rina ayaa ku sugaysay Nisa shaqadaas ay qabanaysana ayada maalmo aad u fara badan ay qaadanaysay oo hadirtan waxa dhacday Rina iyo Aris ayaga inay isku soo dhawaadaan waxayna u wada dhaqmi jireen sida nin iyo naagtiisa oo kale weliba Rina ayada Aris waxay waqtiga kula qaadan jirtay sariirta walaasheeda Nisana habeenka ayadoo daalanayay iska imaan jirtay waa ayna iska seexan jirtay ayadoona waxba ogeen laakiin war jiraaba cakaaro imaan ciida ayaana la gaaraya ayagana maalinka ciid waxay u soo ciideysanayaan guriga hooyadooda calashan Rina iyo Nisa hooyadooda ayaa ka wada maalinkaasi Rina ayadoo si qurux badan u fiirinayso Aris waxa arkaysa hooyadeeda dhab ahaantiina maamada shaka ayaa galayo ayada waxay noqotaa markii ay soo bixi rabeen maamada gabadheeda Rina ay ku dhahayso adiga
adiga waxa loo baahan yahay xadkeeda inaadan dhaafin calaashaan hadalka way u sirbeebaysaa ayadan si fiican wax uma fahmayso laakiin maalinkaas maamada shaki weyn ayay qaaday ayada waxay noqotaa maalinka xigriina ayada waxay soo wacaysaa Aris laakiin xiligaas Aris telefonkiisa gabadhiisa ayaa haysay markii ay ka qabatana ayada waa ay ku jaraysaa Nisa shaqadeeda waxa ku soo baqanayso saaxiibteeda Madam intaas wixii ka dambeeyay Nisa saaxiibteeda ay ku dhaysaa dhabahantii aniga ninkayga maalmahan waa fahmi la ahay maxay la asiga dhaqankii hore ma lahan ay ku dhaysaa waa uu isbedelay anigana waxay ila tahay asiga wax inuu iga qarinayo Madam saaxiibteeda Nisa ay ku dhaysaa maxaa adigana kamiya aaga shakisan tahay laakiin may ay ku dhaysaa aniga ilaa iyo hadda midaasi ma hubo habeenkaasina waxaa dhacaysa Nisa ayada inay barto telefonka ninkeeda laakiin kuma arkayso waxyaabo laga sii shakin karo maalinka xiga ayayna ugu imaanaysaa jaamacadiisa intaas wixii ka dambeeyay meel maqaaxi ay imaanayaan halkaas ayayna bilaabayaan inay ku wada sheekaystaan laakiin markii uu ka soo tago Reina ayay kulmayaan Aris Reina ayuu ku dhahaya dhabahantii Nisa ayada waa ayna ka shakisan tahay adigana hadda iyo wixii ka dambeeyay waxaa loo baahan yahay inaadan isoo wicin sidoo kale fariimo aadan isoo qorin Reina ayada Aris ayay ku dhahaysaa aniga markii hore waa ogaa adiga jirkayga oo kaliya inaa rabto laakiin wuxuu ku dhahayaa midaan labadeena weynoo fiican tahay maalinkaas Aris asigoo gurigiisa joogo waxaa dhacaysa xaaskiisa inuu la wadaago caawi inay balansan yihiin kuwa asxaabtiisa sidaas awgeed asiga uu soo daahi doono weliba hotel uu soo seexan doono Nisa ayada midaas waa ay ka aqbalaysaa laakiin waxaa dhacaysa asiga markii uu soo baxadan inay soo baxday weliba ay soo aado hotelkii oo asiga uu u sheegay intaas wixii ka dambeeyay habeenay fadhiisay qaybta soo dhaweynta ay weydiinaysaa informationkiisa laakiin ayada wax wala lama wadaagayo si lama filaana meesha waxay kula kulmaysaa Aris wuxuu weydiinaya halkan waxay ka soo doontay laakiin waxay u sheegaysaa kaliya inay halkan ay marisay kadibna ay ku soo leexatay si asiga ay u aragto haddii uu joogo iyo haddii kale laakiin Reina iyo Aris ayaga habeenka ay meesha ku balansanayeen kulankoodana sidii rabeen ayuu u dhacayaa habeenkii Reina markay gurigeeda dib ay ugu soo laabato walaasheedu murugo ka muuqata ayaa u imaanayso Nisa ayada waxay rabtay walaasheeda Reina inay ku nafisto waxay noqotaa Reina maalinka xiga jaamacadeeda waxaa keenayso walaasheeda Nisa maalinkaasna Aris wuxuu jaamacadda kula kulmayaan in ay jaamacadda iskula shaqeeyeen kaasoo Jundi lagu magacaabay wuxuu ku dhahayaa been fara badan waa la sheegi karaa laakiin beenta mar walba la sheega ayada maalin uu waxa soo bixaysa runteeda adigana kaliya ma socon kartid ayuu ku dhahayaa waxa loo baahan yahay run inay kula socoto arrimaha ahaas weli hoola afraha kula jirsan ma ahan ayuu ku dhahayaa wax adiga ku wanaagsan calaashaan aakhiradaada iyo adduunyadaada ay iskaga dheelaysaa ayuu ka wadaa sidaas awgeed waxa wanaagsan adiga inaad ka toobad keento calaashaan ay iska dhaafto gabi ahaan maalinkaas Nisa ninkeeda Aris ayay soo wacaysaa aadan magaalo kale ayay u socotay weliba halkaas ay rabtay inay shaqo ay ka soo qabato ninkeeda ayayna rabtay inay ku dhahdo gabadh waa inaa ka soo kaxaysa iskuulkeeda laakiin waxaa dhacaysa asiga xilligaas inuu telefoon uu ka qaban waayo intaas wixii ka dambeeyay walaasheeda Reina ayay soo wacaysaa waxayna ku dhahaysaa Aris asiga jaamacadda miyuu jooga mise waa uu ka maqan yahay markii uu ogaatana asiga jaamacadda inuu joogo waxay ku dhahaysaa telefoonka waa inuu iga qabtaa laakiin anaga waxaan ogeynaynaa Reina iyo Aris ayaga inay wada joogaan weliba ay waqti ay wada qaadanayaan ugu dambeyntii Nisa ayada ninkeeda Aris ayaa telefoon ka qabanayo waxayna ku dhahaysaa aniga magaalo kale ayaa howlo shaqo ugu socda waxaa loo baahan yahay adiga gabadha inay iskuulka ka soo wado asagana haye ayuu ku dhahayaa hadeertan hal xiisa ayaa ii dhimo markii ay ii dhamaata ayaa ka soo wadi doona weliba aniga ayaa guriga geenayo asagana wuxuu u malay telefoonka inuu jaray laakiin telefoonka ma uusan jarmin Nisan ayada waxay maqlaysaa ninkeeda Aris oo la sheekaysanayo walaasheeda weliba magaceeda ugu dhawaaqayo ayadan maadaama ay walaasheeda codkeeda ay taqaanay waa ay fahmaysaa walaasheeda iyo Aris inay wada joogaan Arisna xilligaas Reina ayuu erayo aad u qurux badan uu ku dhahayay laakiin dhab ahaantii Nisa ayada midaas way aamini weynaysaa maalinkaasna xaaladda ayaa ku xumaanaysa maxaa yeelay waxay ogaatay naagtii ay ka shakisanay naagtaasoo ayada ay ugu milaysay naag kale laakiin waxay noqotay walaasheeda taasoo ayada ka yaraad weliba gacanteeda ay ku soo korisay indhaheedan ilinta waxay ag imaanayaan si aanan kala joogsi lahayn waxay noqotaa ugu dambeyntii Aris gurigiisa ayuu imaanayaa laakiin wuxuu ugu imaanayaa Nisa oo joogto weliba aad u xanaaqsan ayadan indhaheeda ilin ayaa ka da'ayay waxay ku dhahaysaa habeeneeda waxaa jira sababo qaar ee ayada ay u masiirto laakiin masiirkeeda markii uu run oo noqday ayuu ku dhahaysaa ayada waxaa gaaro dhaawac aysan ka soo kabsan karin dhaawacaas way wanaagsanaa lehda ayuu ku dhahaysaa haddii uu qof kale uu iga soo gaari lahay dhankiisa laakiin waxa uu iga soo gaaray ayuu ku dhahaysaa dadku way igu dhawaa waana walaasheeda iyo adeega waxa igu dhahday ayuu ku dhahaysaa aniga waxaa ahaan doonaa nin wanaagsan sidoo kale aabo wanaagsan laakiin waxaa kasii wanaagsanaa lehda ayuu ku dhahaysaa adigana kale hadda igu qiyaami lahayd anigana midda ma ka filan ayuu ku dhahaysaa adigana dhab ahaantii khiyaano weyn ayaa ii geysatay dalka Soomaaliya haddii aad tagtana moohaas wuu ku dili doonaa adiga kuma cafin doono Arisna asiga wuxuu isku soo jiray waxaan oo dhan adiga ayaa ka dambeeyay maxaa yeelay walaashaada adiga ayaa gurigan keentay ayuu ku dhahayaa weliba ayadoo qaan gaartay Nisan ayada hadalkaas ayay kasii xanaaqaysaa lugtana dhala ayaa ka qalayso dhabaantii xaaladda ayaa ku xumaanaysa ayadan waxay samaynaysaa ay garan weynaysaa sidoo kale haddana qolkeeda ayay jijin ka dhexelaysaa jijintaas oo lahayd walaasheeda waxay ku dhahaysaa aniga qolka markii ay imaado waa ka shakin jiray waxayna ila noqon jirtay meesha aniga ku jiifanaa inuu qof kale uu ku jiiftay laakiin hatirtan way ii caddaatay ayay ku dhahaysaa weli waxaa ogaaday qofkii meeshan ku jiifan jiray dhabaantii Aris isagana maalinkaas xaaladda ayaa ku xumaanayso wuxuu sameeyaa ayuu naweynaya indhihiisan ilmo fara badan ayaa ka imaanayaan wuxuu sameeyay inuu qalad u ahaa ayuu ogaanayaa intaas wixii ka dambeynaysa ayada meesha saaxiibteeda Madam ayay iska imaanaysaa waxay ku dhahaysaa aniga kama aanan filayn midda inuu igu sameynayo laakiin wax walba waxa iga daran ayay ku dhahaysaa walaasheeda oo ayada wax walba ii ogolaatay inay igu sameyso ugu dambeyntii guriga hooyadeeda ayay imaanaysaa laakiin guriga waxay ugu imaanaysaa Reina xilligaas maamada ayada ma aysan joogin Reina ayada waxay isku dayaysaa walaasheeda inay farxad ay ku soo dhaweyso weliba ay u soo dhawaato laakiin ugu dambeyntii waxay ogaanaysaa Nisa ayada wax walba inay soo ogaatay Nisana walaasheeda ay qaale ee kala duldhacaysaa waxayna ku dhahaysaa qofka la khiyaano waa ka filahay laakiin adiga kama filaynin anigan walaal ayaa ku milay adigana waa ku soo dhaweystay dhab ahaantiin aniga ayaa ku soo koriyay intaas
wixii ka dambeeyna hooyadooda ayaa meesha imaanayso. hooyadan ayada waa ay isku oonaysa Reena ayayna ku dhehaysaa ayada waa walaasheeda weliba yaraantaada ayada ayaa kusoo korisay. haddii aa ogaan lahayd qiimaha walaaltinimada adag mida aa samaysay ma aadan samayn lahayn. nagan waxaan ogaanaynaa Reena ayada weli ina gar ay isla sii leedahay, laakiin ugu dambeyntii hooyadooda ayaa istaag ka dhacayso. isbitaal ayayna oola soo ordayaan. sidoo kale Aris si gabadhiisa ayuu ku soo wadaya guriga Nisa saaxiibteeda. Nisana waxaa loo sheegayaa hooyadeeda xaalad xun inay ku sugan tahay. waxaa lagu dhahayaa ayada qalin ayaa lagu sameynaya xalka lama lahan. ugu dambeyntii Nisa ayada midaas ayay aqbalaysaa. sidoo kale Aris isbitaalka ayuu imaanaya. Nisa ayuuna gabadheeda u keenaya. waxay noqotaa ugu dambeyntii qalinka waa lagu guuleysanaya. maamadan labada walaala ay isku wacaysaa hal meel ayayna isku keenaysaa. laakiin Nisa ayada walaasheeda waa ay ka xanaaqsanayd. waxay ahaato maamada waxay ku dhaysaa idinka ayaa walaale ah waxaana loo baahanyaa inaadan isdagaalin. intaas wixii ka dambeeyay maamada waxaa la keenaya guriga Nisa. sidoo kale halkaasina Reena waa ay joogtay ayadana. maamada gurigaas waxay ku xanaaninayay labadeeda gabdho haba u badnaatee Nisa. Arisna ugu dambeyntii xaaskiisa Nisa ayuu ku dhahayaa adig ilaa goorme ayaa aniga sidaan ii inkiraysaa calaashaan aadan ila hadlaynin. Nisana waxay ku dhahaysaa halkan waxa uu joogaa hooyadeedii inaan xanaaneeyo. haddii aysan hooyadeedii joogi lahayn waxay ogaataa ayay ku dhahaysaa aniga guriga inaanan dib dambe aanan oogu soo laaban lahayn. dhab ahaantii Nisa ayada waxa dhacay aad ayay aagu xumay. Arisna asigoo uu ku xumay wixii dhacay intaas wixii ka dambeeyay ilaahay ayuu dembi dhaaf weydiisanaya. sidoo kale Reena iyo walaasheeda Nisa ayaga weli waa ay kala xanaaqsanayeen calaashaan waa ay kala aamusnaayeen. maalinka xiga Aris asiga gabadhiisa ayuu ugu imaanaya iskuulkii ay dhiganaysay. gabadhiisana waxay ku dhahaysaa maalmaha hooyadeeda ayada waa ay iska oonaysaa. anigana ma aqaana ayay ku dhahaysaa waxa ku dhacay laakiin waxaa rabaa adiga iyo hooyadeeda oo faraxsan inaa idin arko. asigana hay ayuu ku dhahayaa midaas aniga ayaa samayn doono. habeenkaasi Nisa ayada quraan akhrisanaysa cod ayay maqlaysaa. codkaasina wuxuu ahaa qof mantagayo. isla markii dhanka suuliga ayay soo aadaysaa walaasheeda Reena ayayna arkaysaa. sidoo kale meesha Aris ayaa imaanayo. Arisna waxa uu isku dayayaa asaga inuu la hadlo gacalisadiisa Nisa laakiin waa ay ka diidaysaa. sidoo kale Reena ayada waxay bilaabaysaa inay walaasheeda ay cafis ay weydiisato, laakiin Nisa ayada ma aysan rabin labadoodaba inay usoo dhawaadaan. waxa dhacayna waa ay ku xumed ninkeeda Aris ayayna ku dhahaysaa waxaan oo dhan adiga ayaa ka dambeeyey. oo ugu dambeyntii waxa dhacday aniga iyo walaasheedaba uur inaan noo yeesho. intaas wixii ka dambeeyay hooyadeeda ayaa meesha imaanaysa waa ay usoo kala ordayaan. maamadan waxay ku dhahaysaa idinka walaalo ayaa tihiin waxa loo baahan yahay inaadan isdagaalin. noloshana waa ay dhammaan doontaa ayay ku dhahaysaa waxa loo baahan yahay inay isweheshataan. laakiin nasiib xumo waxaa dhacaysa maamada ayada halkaas inay ku geeriyooto. arrinkaasi nabaradooda ayuu sii damqinaya aad ayayna aagu xumaanayaan waxa dhacayo. ugu dambeyntii Nisa hooyadeeda waa la soo aasaya. hadeertaan isku xirihii ugu weynaa Reena iyo Nisa dhab ahaantii meesha waa uu ka baxay. waxaana ula jeedaa Reena hooyadeeda. waxay noqotaaba Reena gabadheeda ayay soo wadanaysaa laakiin aabaheeda ayaa kasoo dababaxayo. gabadha yarna ayada waa ay diidaysaa aabaheeda inay ka tagto hooyadeeda ayayna ku dhahaysaa aniga aabaheeya ayaa la joogaya. laakiin aabaha asiga midaas kuma uusan faraxsaneen oo wuxuu rabay gabadhiisa inay raacdo hooyadeeda. intaas wixii ka dambeeyna Nisa gabadheeda ayada ayaa soo kaxaysanayso. sidoo kale Aris asigoo ugu dambeyntii shaqadii jaamacadda waa laga soo burinayaa. mar kale waxaa dhacaysa asiga iyo Jundi inay kulmaan. wuxuu ku dhahayaa ilaahay waa uu cafis badan yahay asigana ceebaha bini'aadanka waa uu asturaa. laakiin wallaahi maalinkuu kuu soo jeesto waxa uu ku tusayaa adiga adoon xun inaad tahay weliba aadan waxba ahayn. anigana arrinka mar hore ayaa kaaga digay ayuu ku dhahayaa. Arisna waa uu aaminsanaay tani inay tahay qalad uu asiga uu sameeyey. maalmaha iyo daqiiqadahana waa ay soconayaan. midaasna waxaa kasoo wareeganayso muddo aad u fara badan. waxaan ogaanaynaa Nisa ayada inay furatay xarun ganacsi ayada ee leedahay. sidoo kale Reena ayada shalayta ayay taagnayd maxaa yeelay walaalka dhabta ah weliba asiga kusoo koreeyey sidaasi loolama dhaqmo. yaraanteeda ayayna soo xasuusanaysaa inta badan walaasheeda ayaa ayada gacanta ku hayn jirtay. heerka ay maanta ay joogtaan ilaahay ka soko walaasheeda ayaa soo gaarsiisay. sidoo kale Aris asigoo ugu dambeyntii waxa uu noqday mu'min sax ah mashaajidkana kama uusan bixi jirin. muuqaalkiinan halkaas ayuu ku egyahay. muuqaalkan waxaa laga sameeyey qiso dhab ah weliba dhacday 2023. anigana waxaa jeclaystay qisadan inaan la sheer gareeyo saaxiibadeyda. muuqaalkana like garay si uu meel dheer uu u gaaro muuqaalka. inta aan kaga kulmaynana muuqaalkan muuqaalka xiga nabad ah.